بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka jeediyo go'aan ka soo baxay xukuumadda dawladda Puntland maanta oo bisha July ay tahay 31/2014 go'aankaas wuxuu ku saabsan yahay heshiiskii lagu saxeexay xamar shalay oo bishu ahayd 30kii bisha 7 2014 dawladda Puntland markay aragtay heshiiskii maamul sameynta gobolada dhexe ee taariikhdiisu ahayd 30kii bishii 7 2014 markay eegtay dastuurka dawladda federaalka qodobka kontonaad farqadiisa 5aad iyo 6aad markay aragtay qodobka 52aad farqadiisa 2aad xarafka ba iyo farqadiisa 3aad dawladda Puntland waxay go'aan ku gaartay sida soo socota. dawladda Puntland waxay ka soo horjeedaa heshiiska maamul sameynta gobolada dhexe kaasoo khilaafsan dastuurka dawladda federaalka ah. waxay dawladda Puntland aad uga xun tahay ka qaybgalka xubnaha beesha caalamka iyo inay markhaati ka noqoto heshiis khilaafsan dastuurka dawladda federaalka ah. waxay dawladda Puntland nasiib darro u aragtaa in madaxdii sare ee dawladda federaalka ay horseed ka noqdaan heshiis ka hor imaanaya dastuurka dawladda federaalka iskana horkeenaya bulshada Soomaaliyeed. dawladda Puntland waxay wada tashi ugu yeeraysaa xubnaha kaga jira golayaasha dawladda dhexe ee ka soo jeeda deegaanada Puntland muddo 15 cisho gudahooda ugu dambeyn 15 bisha August 2014. dawladda Puntland waxay dib ugu yeeraysaa xubintii uga wakiilka ahayd guddiga dib u eegista dastuurka marwacaasho geela diriya. dawladda Puntland waxay go'aan ku gaartay in gabi ahaanba ay joojiso wixii xiriir iyo wada shaqeyn ah ee ay la lahayd dawladda dhexe ee federaalka ah. dawladda Puntland waxay cadeynaysaa wax alla wixii dib ah ee ka yimaada heshiiskaas aan sharciga ahayn ee maamul sameynta gobolada dhexe ee lagu sheeganayo qaybo ka mid ah deegaanada Puntland ay mas'uul ka tahay dawladda federaalka ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.